iyo caay inta buu isku keedaray iyo xumeen iyo hadallo xunxun inuu agteeda ku shugaansado gabar. السلام عليكم جايز ولكن ودنا بحر ودن له soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe saar haddii aad horey u saartani mahadsanid magacaygu gudan baxar halkaad iga daawaneysna waa Mojis TV maanta waxaan wadaa qiso aad iyo aad cajiibna ah xanuun badan qisaas waxay la soo wadaagtay gabar walaashay waxayna igu tiri magacayga soo sheegin okay haddaba qisadu waxay u dhacaysaa sida tan waxay tiri wiil baan isbaranay waxaan wada sheekaysanayna muddo yar kadib waxaan ku wada kulanay guri asaga uu leeyahay ama guri asaga uu joogo markaan u imaaday kadib waxaa naga dhaxdhacay waxyaabo aad u weyn waan isku tagnay ayay tiri kadib halkaas waxaa ku baabaaday gabarnimadeeda kadib waan soo dhaqaaqay waxaan imaaday gurigeyga kadib waxaan ku fikiray oo aan la walwalay sidaan ula hortagi doonaa ninka ay guurso lahaa ama ninka mustaqbalka aan la wadaagi lahaa wiilkaanne waa aan jeclahay asagana wuu jecel yahay waxaan ka baqay inuu igu boodo ama uu idhaho qof yahay kuma doonayo maadaama aniga jirkaaga ii fasaxday qof walbana sidaas ayaad ugu fasaxaysaa inuu idhaha ayaan ka baqay waxaan sameey ayaan gara waayey gabar saaxiibadii ayaan la tashtay arrintiina waan u sheegay waxay igu tiri abbaayo wax walbo xagga alla ayay ka qoran yihiin waxaana weyba kugu dhaceen waxaad isku daydaa ama ku dadaashaa sidaad ninkaasi ku guursa lahayd nin kale ha guursanin ninkaas oo keliya waa inaad guursataa sababtoo ah isaga ayaa ku dheelay gabarnimadaada kadib go'aankii gabadha ayaa qaatay waxaana ku dadaalay si uu ninkaasi ii guursa lahaa wax walba ayaan sameeyey dadaal dheeraad kadib waan ishelnay oo waan isfahnay wiilkii wuuna isoo doontay waxay caqabad ka taagnaatay xagga familkayga wiilkii markuu isoo doontay aabbe iyo hooyo way ii diideen inay igu daraan wiilkani ayagoo arrimo kale ku dhaleecaynayo ma shaqaysto lacag ma haysto kidaa waay ayagoo ku dhaleecaynayo ayay ii diideen guurkiisa kadib waxaa dhacday istagaal iyo isjiijiid iyo qayli iyo dood badan waxaan ka dhaadhiciyey haddii ii diidaan inaan ka baxsan doono guriga mar uuna asaga aan la faka doono kadib waxaa liigu sameeyey inqaab aad u weyn waxaa liigu xiray qol waxaana liigu xiray silsilad labada lug ayaa liiga xiray muddo ayaa lii garaacayay lugahana waan ka xirnaa waan ooyay waan fikiray kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan been ka dhaadhiciyo familkayga kadib familkii ayaa wax walba ka dhaadhiciyey wayna ii ogolaadeen inay iga furaan lugaha kadib waxaan iska dhigay inaan ilaaway wiilkaasi kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan baxsado wiilkii ayaa la tashtay wuxuuna iga dhaadhiciyey inaan soo baxsado waa aan wada baxsanay kadib waxaan aadnay gobollada ka mid ah Soomaaliya waxaan halkaasi ku wada qaadanay nolol aad u fiican waan wada faraxsaneen nolol iyo farxad badan markii aan wadaagnay ayaa familkii waxay ogaadeen inaan aniga iyo asaga wada noolnahay oo weliba aan isguursanay kadib waxay iga dhaadhiciyeen inaan dib u soo laabto oo si sharaf leh lii aroosiyo kadib waxaan ogolaanay arrintii waana imaanay waxaana isku guursanay si sharaf leh guurkeena kabacdi waxaa dhacday inaan u dulqaato asagoon waxba haysanin oo aan la noolaado asagoon waxba haysanin wax walbo ayaan ugu sabri jiray markii aan wada gaarnay muddo aad u dheer 6 bil ilaa 7 bil markii aan isqabnay ayaan uur u qaaday kadib cunugii ayaan dhalay cunugii markaan dhalay wiilkii waxaan ka dareemay isbedel marwalba wuxuu u dhaqmayaa si xun wuxuuna ii galayaa si xun markasta wuxuu isku dayayaa inuu i canaanto inuu igu qayliyo habeenkii inuusan xaafadda dhaqsi ku soo hoyanin habeenna inuu iska dhaxo wax walba ayaan ka codsaday si kastaan ula hadlay wuxuu iila dhaqmayaa sidii qof shaqaale u ah wuxuuna ii xumaynayaa si aanan weligay ka filaynin wuxuuna igu garaacayaa ul markastuu ila dagaalayaa oo ii caynayaa waxa aan sameeyo ma garanayo siduu ii garaacayay oo ii jardilayay hooyo aabbane way iga xun yihiin waayo asaga dartiis ayaan waxaan u soo xumeeyey hooyo iyo aabba iyo familkayga oo dhan kadib asaga wuxuu doona ayuu iga samaysanayaa wuu i canaananayaa wuu i caynayaa wuu i aflagaadeynayaa waxa aan sameeyna ma garanayo marwalba waxaan ku fikiraa sidaan wiilkaan wax u fahansii lahaa laakiinse wuxuu igu sameynayo
ma aha mid aan ilaawi doono. jirkeyga waxaa ku yaala dhaawacyo badan, qalbigeyga kaba daran. markasta waxaan ku dadaalaa inaan asaga ka dhaadhiciyo jaceylka iyo naxariista iyo farxaddii aan ku wada noolin markii horeeto. laakiinse hadda waxaan go'aan ku gaaray inaan iska furo gebigiisaba, waana aan ka tagay gurigiisa, waxaana aaday familkeyga. inkastoo ay leeyihiin familkaas cunugiisa iyo asagaba faraha ka qaad keliga, adiga nolow, anigana cunugeyga kama maarmo, asagana inaan iska furo waan rabaa. laakiinse familkeyga xujo ayay iga dhigeen inaan cunugeyga ka sabro si aan ayag ula noolaado. laakiinse waxaan sameeya ma aqaano. hadda waxaan u baahanahay walaalayaal inaad iga siisaan talo. arrintaasi aad u xanuun badan, waxaana ku noolaan karin noloshaasi, waayo cunugaasi wuu isbedelay. garaaca, dil iyo qaylo iyo caay inta buu isku keedaray, iyo xumeen iyo hadallo xunxun, inuu agteeda ku shugaansado gabar, inuu mar walba naag la balansan yahay, inuu mar walba naag u tago, mar walbana taleefankiisa waxaa soo wacda gabar. markastana wuxuu idhahaa kama qaban kartid, wuxuuna la kulmaa gabdho, wuxuuna mar walba u shukaansadaa si aan caadi ahayn. agteeda ayuu xataa kula sheekaystaa. waxa aan sameeya ma aqaano, aad ayaan u jeclaa. laakiinse hadda waxaan go'aan ku gaaray inaan iska furo, balse waxaan iga codsanayaa inaad talo iga siisaan idinka asxaabta ku xiran Muujis TV iyo walaalkayga Wadani Baxar. waadna mahadsantihiin. xanuun badanaa wallaahi, waa arrin aad iyo aad yaab u leh, balse aniga qisada markii aqriyay aad ayaan u murugooday. laakiinse taladaa ku siinay waxay tahay qof sidaas ah hala noolaanin. sidaad go'aankaas u gaartay u gaar, cunugiisana sii. cunugaaga waqti walba asiga ayaa ku imaanayo. asxaabta idinka ayaan idiinaya, idinkuna taladiina halkaasi kusoo gudbiya commentiga ugu soo qora. waana mahadsantihiin. walaakin Wadani Baxar idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.